marna saaxiibkay mana walaalkayga yar ina hooyo inaan fariin u dirno meeshaan maadaama uu guul wacan ka gaaray xagga social media maanta waxaan rabaa aniga ilmeyna kulligan hambali inaan dhahno ina hooyo hambali ina hooyo hambali ina hooyo هرو سعلي باحنا الله ودني قدبتها ويدنا منال محل هذا أنا والله ما شاء الله تاكي عيال كان وحرجينا قلب كسي قروح بدن سو ما دبيني مرقاتي واتكتين قلب كسي قروح اوكي في امان الله هرجارين ودارك دونتا ان شاء الله اوكي مع السلامه قاعد سلامتي تاك باقي منال محل هذا تريبل تري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنال دولي channel kan naga daawanaysiina waa Manal Dole official iyo channeladu way badan yihiin dahabayna gaatame ima official iyo Saadaq Soona iyo channel kan dhamaanteen waxaan nahay one team triple T maanta waxaan la joognaa ilmaheena yaryarka caruurta xanaanay rabaan adigayna ka rabaan mataqaadka u fidinay alxamdulillah waa qadeynay ma sha Allah maanta waxaan rabnaa ilmaheena inaan wareysano inay wadan yihiin ee wadaninimada waxa ay ka yaqaaniin baby wadani ma tahay يعني هاي ما حدنا أنا ودني تاع ما حدنا أنا ودني تاع هذه هات الدلكة ولا تدلكة أنيا دوي مايا دلكة ما تقال هاي دلكة ميس صوماليا هاي مدحينها ما تقال يا واي ما شاء الله هاي علنك سدويك يا علنك يا شيء من اللي أمس علن كاجي شيء علن متقال علن محلها علن محلها حدك الصومالي ياس علنك الكلمة دي متقال ما كلك الصومالي وحالها بلوك يا عدان كلرد والدي بري دونا إن شاء الله أنا معلومات في عنا هاي كلرد في عنا الماء وبركرة وقتي إن شاء الله إن إدين صو إن وقت أوصل سمية إلى إسكودية إن شاء الله سانو كلش معاه وحير حتى برشير ضلك إنا برنو وحيابها قارنا برنو حسابته أنت أودنو أنا أنت أنا قارنو إنا برنا إسكودية إن شاء الله قرآن الكريم كان موجود ذالي ناس تي كهلي لها دكسي عروتان حنان دكسي سيدي كهلي لها إن شاء الله ودنك محاكة تقانا أنيا والله إلا هذا ما كان ودنك محال إله وهلا قانا ودنك مقيس مقدشو صومالي دلكاغا صومالي هاي مقالة ماذا حد دلكاغنا ما قانو له مقدشو واي هاديغنا دلكاغا انتي واي بادي meeshan waxaa nooga cad wax lagu qoslo ma yaalaan dhibaatada dalka ka jirto ayaa maanta kaliftay caruurtan inaysan aqoon maanta dalkooda xitaa daawadiisi dalkaaga ayagoo ku nool dalkii inaysan garanaynin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan xabad u bari doono waxyaabaha basic ah inay dalka ka soo jeedaan Soomaaliya la dhaho inay calan leeyihiin inay madaxweyne leeyihiin taasna aqoon daradaas waxa uu keentay waxbarasho la'aanta haday waxbarasho heli lahaayeen ilmahan maanta way ogaan lahaayeen dalkooda Soomaaliya la dhaho calankooda in Soomaaliya calankooda way sheegi lahaayeen maanta wax badan ka maqan waxaan rajaynaynaa inay baran doonaan haddaan maanta waxaan rabay inaan weydiiyo heeska calanka Soomaaliya laakiin ilmahan qof yaqaan inuu ku jiro maadaama xitaa dalkiiba la garan waa magaciisa calanka Soomaaliya heestis ma garanay wax garanay mid ku jira garanayade calanka Soomaaliya ma taqaana heesta calanka Soomaaliya dhibaatadaas idinka ka mas'uula wax kala dhigi karama saa u bari lahayd
maasha Allah ciyaalkeena waa kaas hadii ay maanta aqoon lahaayeen dalka wax la bari lahaay maanta muxuu ahay caalamka ma naqaan ma dhigi lahayn meesha ku noosh intee baa dil dhaata meel kale sheegooyaan marka waxaas dhan waxa uu koos gareeyay hadii oo iskool ama dugsi la geen lahaa dibkaan dhan ma arki lahayn marka asxaab waxa idin leeyahay ciyaalkaan inta anaga waa kana maasha Allah walaasheena manaal waa kana garab weysiisa anagana waa garab taaganahay idinkana waxa idin leenahay inta nagu soo raacayso waxa waa jecelnahay waana soo dhaweyneynaa sidoo yaa isdhiig karnaa qaar habo wax yar inta dhinacani soo istaag yaa ka masuula ilmahan maanta inay waxba garan waayaan والله horta maamanaal mas'uuliyadda markii la dhaho horta mas'uuliyadda waxay aad u kori doontaa mas'uuliyiinta dalka مسؤوليين تدلك مركي أي كرتنا وحي مر لبعض آد أسي كرد محلها مسؤولية سلك الربع شعبك دليرت قاسة دليرت الصومالية شعبك وحي قبل كنا محس الدولة قبل كده وصح شعب هدو ما أنت تبون قفض من كان إيش القامة والله الدولة وحي قبل وذا وحي قبل كنا دليرت قاسة دليرت لكن ما حد عاي دليرتي أيا نجا مشغول سا أنا هذا جروب كنا تيم ممكن وحنا هاي أنا مدحوا دليرت الصومالية هاتو إنا إسكسو meel iskugu wada keeno shanta qaaradood adduunka meel walba ka joogaan ma sha Allah dhalinyaro badan aan isku hayaa maanta inteena Muqdisho joogto waliba barkeeda kulanay marba bara kulano marba intii nasiibka noo saamaxaan kulana dhalinyaradaasna waxaan isku qowleynaa insha Allah sidii aan isku garab istaagi lahayn mar walba aan wax u qabsan lahayn danta dalka iyo diinta iyo dadka aan u sameyn lahayn horta ma hadda kuwad Allah subhanahu wa ta'ala ayaa iskale balse ma hadda labaad waxa iskale maamada dalka markaan leeyahay waa maama Manaal dole oo maanta noo sababtay in marxaladan hadda aan taaganahay iyo caruurtan aad u jeegtaan inay helaan cunto ay cunaan iyo dharka ay maanta dhaxanta iskaga xiraan maalin cunug cunto la siiyay noloshiisa ma kaafiso ee muhiimadda la rabo waxay tahay farxad ay u tahay farxadii hal maalin bal kabaran marka hal maalin oo daqiiqada ay cunteeyeen oo cuntada hadii la gaaro maghribka ay ka bixi doonto farxadaas waxa ka sii farxad qurux badan markii ay helaan saddexdooda waqti loo joodkeeyo sariirtooda waxbarashadooda intaas kaliya u baahan yihiin annaga barnaamijku waan bilaabnay fikirkaasina waxaan aad ugu mahadcelinayaa hooyo Manaal waayo hadiysan ahaan lahayn maanta annagoo dhalinyaro ma aanan wada kulmeen oo imaanin annagoo safar u soo galnay si aan caruurtaani nolol u helno waxaan u istaagayna waxay tahay inaan helno caruurtaani noloshooda waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyiintiin waxaan ka codsanayaa macallimiinta professorada gabdhaheena Soomaaliyeed wiilasheena Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan idinka codsanaa oo iga codsi ah in dhalinyartaani aan u soo jeesano barnaamijku waan bilaabnay waan dhameystiri doonaa intee nafta nagu jirto aan dhaqaaq leenahay oo dhiigeena shaqeynayna waxaan diyaar u nahay in barnaamijkan u istaagno laakiin annagu kaliya wax ma qaban karno waxaan u baahanahay shacab Soomaaliyeed badan qalbi jilicsan way buuxaan maadaama laga yaabo hadayna arkaan inay nagu soo daydaan insha Allah waan rajaynaynaa way jiraan dad wanaagsan dunida kama dhamaan Soomaali way wada wanaagsan tahay meel walba dunida ka joogta laakiin waxa jira dad yar oo xun dadkaasina waxaan dhihi lahaa oo aan ka codsan lahaa dimiirkiina inaad dib u soo calisaan qaasatan youtuberada Soomaaliyeed waxaan ka sii codsan lahaa in barnaamijkan u istaagan ee midibada u istaagan dheer waxaan ugu direynaa youtuberada waaweyn sida Asid Xaajiyo walaalkeen CK walaalkeen Darisla Cabdi in videogan haday arkaan lacala muuqaalkan codkooda ay nagu caawiyaan maadaama codka shacabka ay ku xiran tahay iyaga oo shacab badan ku xiran yihiin waxa jecelna ilmaha sirarka qofkii noloshooda kafaala qaadi lahaa ama xataa halkii cunug waxa iskugu jiraan aqoon rajo iyo kuwa waliba waalidiin leh laakiin dan yar ay yihiin ما شاء الله ما توح برشة وباهين نرالي وباهين أنا قوح ما يدين فافين وح على إكسبلين جري ماشى مجران وحال قف فديقة وجد الله مصر ركعه ووجدين نلاش ماشى كتاعن هي وحان كهلين قفك عقل وفهم كران وصح ممن القفل بعقل له ودريمي كرا مرحلة دان لكن مد واحد جرته أو دليرتين وذا جيفان
war dhalinyaro fadhiga ka kaca caruurtaani ininka idin sugoosaa alla ka suko ininka idin sugoosaa qof walba maanta jeebkiisa wax ku jiro yoosan isdhiin dunida horumar ayaa ka gaartay intii caruurtan dhibaataysa ku jira adna waxa ku jirta imtixaan caruurtan waxay ku jiraan imtixaan caruurtan imtixaankooda aan isku dayno inaan imtixaankooda ka qayb qaadano aan isku dayno wixii dalka waa fiyoorihii dalka waa ciyaalkii kacaanka bal kabaran caruurta markii xilligii kacaanka waxa jirta in caruurtaasi ay nolol lahaayeen bal maanta nolol ma leeyihiin waa su'aal waa maya waxaan rabnaa mahadnaq zaad u mahadnaqeynaa cunugan hooyadii korisay hadaayina waa idin sheegay waa hooyo qurux badan waa hooyadii wadanka waa hooyo maanta mudan in lagu daydo cunugan da'da yar aad u jeedaan ya waalidkii dhalay way soo fogeeyeen balse hooyo dhibaataysan ayaa haddana iyadoo dhibkeeda aysan fiirinin ee cunugaas yar u sii darnaxday hooyo waxay tahay hooyadii boqoradda dunida annagana sidaan u dhannahay waxaan kuu ballan qaadi doonaa waxaad ku faraxdo inaan kuugu keeni doono fadhigaaga hooyo xaliimo aad u mahadsantahay dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed waxaan zaa'id u mahadcelinayaa ininkuna aad u mahadcelisaan maamo manaal waayo hooyo manaal haddaysan ahaan lahayn maanta inteena meesha iskumaan imaadeen meeshaan aan fadhino sababtaan u fadhino saacadda aan fadhino sakiga aan fadhino waxaan u fadhinaa maamo manaal waad mahadsan tahay boqolkiiba boqol waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu usii istaagi doono dhalinyarta soomaaliyeed aqoon-yahanada barofesorada macallimiinta inta barna xamar joogto iyo dunida daafaheeda joogto magaca soomaali sheegto damiir hadday leeyihiin ciyaalkana u diirnaxan waxaan aad iyo aad aan baaq ugu dirayaa oo aan zaa'id baaq ugu dirayaa caalamka waxaan u baaqayaa inay caruurtan soomaaliyeed ee nala garab istaagaan annagana inta karaankeena waa la garab istaagi doonaa intee dhibic dhiiga jirkeyga ku jirto sidaan u dhannahay aan galabta u soo istaagne waa galab casira waa galab jimce waxaan ballan qaadi doonaa annaga inta nolosheena ka dhiman inaan barnaamijkan hor istaagno waalidiinta inta dhimatana allah u naxariisto inta noolna allah ha caafiyo inta xanuunsanna allah ha caafiyo caruurtanne waxaan u rajeynaa mustaqbal iyo aayatiin qurux badan waxaan rajaynayaa kulanka galabka aan kulanno inuu noqdo kulan qurux badan kulanka galabka aan kulanno inuu noqdo kulan ee dhalinyar Soomaaliyeed ee ku helaan noloshooda mid bilaawda oo dhammaanay dhammaadkiisana ay noqon doonto caruur Soomaaliyeed oo wadada taagan in la waayo ciyaalkaanu isbedelay ayuu noqon arki doonaa maalmaha kamida insha Allah historiga gadaalin videoga soo galo macquul Saciid oo kula tahay inaan barno heesta calanka hal mar Soomaaliya tooso inaan barno okay waa qasab heestaasi kaliya ayaga kuma dhiirigelin doonay waxaan rabaa inaan ku kiciyo dhalinyarta Soomaaliyeed maadaama ay tahay halka hees qof walba Soomaali markuu maqlo oo fadhiga ka kaco heestaas ayaan bilaabi doonaa mamanal adima bilaabi doona misaaniga istaagani maadaama aan istaagi karin Soomaaliya tooso isku tiirsadaye hadkiina taagdarane taageero weligiine waxaan la ooyayaa ilimadayga qubanaysa istiqyaarni loo diiday la doonsadaanahay Soomaaliyey tooso isku tiirsadaye hadkiina taagdarane taageero weligiine Soomaaliya noolaataa leenahay insha Allah heestaas next time inaan wada qaadina la rabaa bartaya heestaasi ma jira qof intiina hadda isku dayi karo waxaan idin sheegaa dalkiina hooyo waa Soomaali calankiina waa buluug cabdi noo qaad heesta Soomaali noo bilaaw aniga ku bilaawi doona
Soomaaliya toosoo isku tiirsadaye hadbakiina taagdarane taageera weligiine Soomaaliya toosoo isku tiirsadaye hadbakiina taagdarane taageera weligiine Soomaaliya maxaa dhahdeen Soomaaliya maxaa dhahdeen Soomaaliya maxaa dhahdeen dalkiina maxaa dhahdeen halkaan hal mar waxaan rabaa walaalkay marna saaxiibkay marna walaalkay gayar ina hooyo inaan fariin u dirno meeshaan maadaama uu guul wacan ka gaaray xagga social media maanta waxaan rabaa aniga ilmeyna kulligan hambali inaan dhahno ina hooyo hambali ina hooyo hambali ina hooyo hore u socli baaxeena aan wadaniga dhabta hooyadiina manaal maxaa dhahdeen annoolaato ma sha Allah thank you israacdo ciyaalkan waxaan rajeynayaa galabkan galab ka sii qurux badan Soomaali weene marqaati waad ka tihiin galabkan galab ka sii qurux okay fi amaanillah soo her gaareen waad arki doontaa insha Allah okay ma salaamo gacan salaanti taag باقي منال maxaa dhahdeen 3 سداد ku saare labadaba isku jirto